السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaad walaalaha qaaliga meel walba joogtaan channelka naga daawanaysan waa Faaduma Filsan qofka idin la hadlay waa aniga Faaduma Filsana waxa idin rajeynaynaa inaad caafimaad qabtaan iyo raatiya وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فاطمة inta xanuunsan ilaahay inoo caafiyo isku soo noqosho wanaagsan iyo mar kale iyo video cusub haday tahay markii koowaad aad soo boqoto hasi xishmad la kaaga codsanaa subscribe ta noo saarto like ta dhac iskaga sii commentiga ra'yigaaga nagu soo wadaag minanku waa minankaagi walaalaha qaaliga aad iyo mahadsan tihiin meel walba joogtaan raatiyay bariyahan waxaa socotaa dameer iyo daanyeer اسمه بدامان bal sheekada dameer iyo daanyeer maxaad ka leedahay تمام شكله دمير دانير أد ولا مسعنين بالسود هذا dameer iyo daanyeer sheekada dameer iyo daanyeer sheekadu waxaa weeye raggu hadday dumarka lacag siiyaan waa daanyeero هاي hadday dumarku ragga lacag siiyaanna oo xataa guriga ka shaqeeyaanna baa la yiri waa dameero هاي bal sheekada maxaad ka leedahay horta rag iyo dumarka ilaahay baa isku uumay ilaa yaxawiye kaadan haye ilaahay subxaana watacaala iskugu talagalay marka dee labada qof waxay is siisaan ayagaa xor u ah hadday isqabaan iyo haddaysan isqabinba marka dee in lagu mashquuloba ma aha saasaad leedahay saasaan leena horta dadka isqaba hadday meesha isqabis imaato ya baddooda in la galo waa khalad anigu kolley fikrad ahaantaan ka aaminsanahay baddooda in la galo waa khalad bcause dadkaa nolol baa ka dhaxaysa noloshii oo ka fiicnayd bayba isku darsadeene xoole maxay sheegayaan lacag maxay sheegaysaa iyo wax yaroo ya beri iska dhammaanaysa ya haddii ilaahay awlaad siiyana dee awlaad waxa adduunka ugu fiican waa awlaad baaba ka dhaxaysa dadka isqaba marka inagaba dhaafa kuma jirno dadka isshukansada ya oo wiilashii ay hadda qaar badan leeyihiin daanyeernimadii waan ka baxnay maxay kula tahay daanyeernimada wiilashii inay ka baxaan ma kula saxsan tahay wallahi aniga ilama saxsana labada qof waxay isiyaan in la sheego waa laga fiican yahay laakiin haddee sababta loo sheegayaan kuu sheegayaa labada qof wiilku lacagta markuu gabadha siinayo sheekaha ka dhaxaysa صح waxayna ku fakerayaan inay isguursadaan صح waa siduu isaga markaa uu isleeyahay haa uu isagu maxaa la dhihi jiray u qarash garaynay u leeyahay dee wax kastaba si oo ya jacaylkaaga u dadaal ya haa saasuu isagu lacagta u siinayaa wiilkii oo soo dadaalay oo wakti taleefonku hadal iska dheh lacag bixin dheh haa intiiba horay gabadhiina waxay hadhow sheekadu kusoo biyo shubanaysaa gabadhi kuna way u sheekaysaa kowna way ka guursataa ya wallahi horta wax walba waa calaf qofka aad saa ugu dadaalaysa horta marka hore waxaad aamintaa qofkan inaad adduun iyo aakhiraba kala tegi kartaan wax kastana calafkaa ka weyn qofka aad saa u raadinaysid ood mood iyo maalba ku bixisay dee wax walba calafkaa ka weyn waxaa laga yaabaa inuu ilaahayba kuu qorin marka gabadhu eed kuma lahaa laakiin eed waxayba khalad ku tahay lacagtaba in laysa siiyo me lacagta dhib ma laha lacagta waa la siin karaa maya in wiilka way siin kartaa maya in laysa siiyo waa khalad wax iska caadi maya waa khalad anigu fikrad ahaantaan ka aaminsanahay waa khalad sababtoo ah gabadhan qofkan intaysa baranin hortiisba way noolayd wiilkana sidoo kale wuu noolaa gabadha waxaa laga yaabaa inay shaqaysato wiilkana waxaa laga yaabaa inuu shaqeeyo labada qofba inay shaqeeyaana dhici karta soo ma aha inaysa shaqaynin oo mid shaqeeyana way dhici kartaa anyway adu siday rabtaba ha ahaato qofka intuusa isagu guursanin ee uuna meel degin ee isaga uuna mas-uuliyad aysan raacin ya wuxuu ka tirsan yahay familkiisa soo ma aha familkiisa maxaa la dhihi jiray waalidkiisa walaaladiisa kuwaasuu ka tirsan yahay kuwaasuna wax la qabaa soo ma aha marka hadda gabadh iyo wiil sheekaysta waxay gabadh wiil lacag ka siisaa oo faa'iido oo ku jirta anigu ma arko wuxuu wiil gabadh lacag uga soo diraa oo faa'iido oo ku jirtana ma arko sheekadaa imaatay midda sheekada ee shukaansigaa imaatay shukaansiga waa hadal labada qof ka dhexeeya soo ma aha oo sheeko ah sheekada mustaqbal baa yaa looga jeedaa haddii mustaqbalka calaf intuu ilaahayba isugu kendaro isguursataan dee waaba falilaahi alxamdu soo ma aha haddii kalena
oo sheekadii ama dadku dabe way isfahmi waayaan ama calafka bas ha iska ahaado dad waxaa jira iyagoo isjecel haddana calafku kala geeyo miday rabtaba ha ahaato ama isfahan la-aanba ha ahaato haddii la isfahmi waayo adigu lagu kala taga sheekadiina dee waa rabalcaalamiin marka anigu waxaan aaminsanahay inaan shilin la bixinin wiilku gabadha wuxuu siiyo iyo gabadhu waxay wiilka siisa in laisku banno sheegta maaha maxaaba baahida keentay in laysa siiyo maxay laakiin tahay ayaga isku hadiyeen qofkan moogta qofka kale ku ixtiraamaya wax hadiyin la dhaho meeshan ma jirto may saas u wahay ha ka yaabin qofkan hortiibu wala kana hortiibu saas oo kale laakiin wax hadiyad la dhaho labada qof kale u hadiyeynayo haddii mid baan kuu sheegay dadka 100 qof oo waxaa laga yaabaa kaaga dhow qoftan aad la sheekaysato oo u baahan jecel yahay dee iska aamuse oo baahan oo aad lacagta siin kartaa jirta qofkan soo ma ogid tan adiga maxaad u siinaysaa jacayl baad u siinaysaa tan wax kaaga lacagta jacaylka la isku siinayo baa khalada may qofta waa qoftaad jeceshahay waan jeclahay qofka waa jecel ku leeyahay marka dee haddaad jacaylba ma jiraan alxamdulilah weeyaan haddaad weydiina dee sidoo kale wax dhibe ma laha dee calafka wax walba ka weyn may adigu hadda midda lacag isa siinta maxaad leedahay anigu la horta ilaa lacag isa siinta qofka lahaa qofku lacagta wuxuu u bixinayaa qofkan kale wuu ku tashanayaa runtaa la isu sheego haya adiga bini aadan baa tahay moogtahay labada dhinac rabtaa ka socotee dhan kastaba ka socota anoo kala qaadanay rag iyo dumarba mid maya khiyaano way dhici kartaa labada qof midkood inuu khiyaano uu sameeyo way dhici kartaa midna daacad yahay haa way dhici kartaa laakiin qofkan bini aadan waaye wax kastaa kaaga soo bixi kara moogtahay adiga laakiin marka kuma xisaabtamaysid qadarta alla waa meesheed qofkan waxaa laga yaabaa isisiinisid rabbiba inayna meesha jirin waxaaba laga yaabaa wax ku mawdkii baaba kaaga soko mari kara moogta marka waxba qadartaa wax walbaba ka weyn marka aniga in lacagta laysiiyaa muhiim wixii dee hadduu calaf idin kala kaxeeyana dee dhib ma jirto lacagta laysa haddaad isguursataanna dee waaba sidii la rabay moogta aduu hadda lacagta siintaad ku adkaysaa anigu waxaan leeyahay lacagta yaan laysa siinin meel hadda waqti kaa lumay oo lacag kaa dhammaatay oo hadhow aad siiro soo istaagto waa dhibaato kale laakiin waqti hadduu kaa soo lumay ya oo laakiin weli lacagtaadi aad haysato caymaad qabtaa gabadhayna lacaga iska bixin wiilowna ha iska bixin taasa idiin sheega inkastoo hadda markii laysu gorgortamay hadda fiiri markii laysu gorgortamay oo wiilashiina wiil xaliya macalin xaliya dha usoo gabdhihiina ay gabadha macad jookar dha usoo baxday ee laysu gorgortamay sheekooyin qoloba wax soo bandhigtay gabdhihii gabadhahda wiil baan intaas biilaya anagoo sheekaysana weli lama arkin dee way soo socdaan gabdhihii weli way arrintooda hadda waa bilow mugta haddee kanba sheekada markii la bilaabo kulli waa jooga wiilasha hadda kulli intooda badan waxay ku wada doodayaan intooda kulli waxay ku doodayaan gabadhaana qabin baa biilayay soomaalidu waxay dhihi horaa looga maamay waxaa li xoola rageed farana ka tirsan baa li feerana ka xisaabsameen soomaalidu dhaha may ha ahaato may micnaha anigu waxaan kaaga wadaa may anigu hadda waxaan ka wadaa taa kama wado anigu micnaha hadda waxaan ka wadaa gabdhihii gabadhahada wiilkaas oo intaas aan sheekaysanayna baa intaa qarash siinayay lama heshoonayaan waxaas dee maya anagoo isla noolba inta maxaa dhihi jiray heer aba isa siinayno anigu shaqaynaya waa dhacday la sheegtaas inti kalena waa la laakiin wiilashii baa deeq bantayo maya ya taas inay wiilashu ku deeqsan yihiin waa la sheegay maya ragga waxaan u malaynaya ha loo qiro wiilasha libinta ha ka yaabin gabdhihii baa waxa waraysan jirin weli arrintooda waa cusay maya wiilashu hadda deeqsinimada inay hadda wiilashu ku badan tahay hadda wiilasha horeeya hadhow in laga boynti badan doono ma sheegin anugu laakiin haddada la taagan yahay inta la hayo horta wiilasha deeqsinimada u batay laakiin wiilal iyo gabdhaba calaa kulli xaal lacagtiina haysta haysanina siiya haddaad isguursataan lacagta isa siiya haddii kalena lacagta haysta wiilashowna gabdhaha lacagta siiya gabdhahowna wiilasha lacagta siiya waraa isa siinina gabdhowna lacagtiina haysta oo kii ku guursado un lacag sii wiilowna gabadhaad guursato un wax sii oo lacag sii bas sheekadu way dhammaatay asxaabey khayr badan baa idiin rajaynaynaa sidaa iyo nabaddiino